waxa magaalada Melbourne wadanka Australia lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu mataaneynayo xisbiga talada dalka ee heer federaal ee Liberal Party iyo ururka jaaliyadaha Afrikaanka Australia kulankani waxa ka soo qayb galay madax sare oo ka socota xisbiga Liberal Party Jason Wood waa kaaliyaha wasiirka arrimaha gudaha dhaqamada kala duwan Neil Aglas afayeenka xisbiga Liberalka arrimaha dhaqamada kala duwan Robert gudoomiyaha xisbiga Liberal Party ee gobolka Victoria ugu horeyna kulanka waxa daafuray madaxweynaha ururka jaaliyadaha Afrikaanka ee wadanka Australia Nasir Cigaal. Tonight we will hear from Jason Wood, Neil Angus and Robert Clark. First, I would like to invite President of Australian African Association to make some opening remarks. Nasir Ingi, who has helped coordinate invitations for this evening and has brought the African community together under the banner of the Australian African Association. Good evening, ladies and gentlemen. It's my pleasure to welcome everyone to this beautiful evening tonight. I want to say why do I choose the Liberal Party? I think it's the best party you could have in Australia. The reason is why is they're very straightforward people, very honest people. madaxda xisbiga Liberal Party ayaa si diiran u soo dhaweeyay inay jaaliyadaha Afrikaanka ka qayb qaataan xisbiga Liberal Party. Can I congratulate Nasser as the President of the Australian African Association? Isn't he a fantastic leader? He's introduced me to the Vice President before Mohammed. So with a committee and leadership like that and a vision and you can feel the passion, you're going to do amazingly well into the future. Our party encourages small business and individual initiative. We believe that free enterprise will maximise economic growth and national prosperity. We believe that where the private sector can deliver a service efficiently and fairly, an unnecessary burden should not be imposed on the taxpayer, and we aim to eliminate unwarranted regulations. Important part of being a member of the Liberal Party is to help develop our policies, to take our broad values and translate them into what a Liberal government will do. Neil mentioned earlier one of the great things about the Liberal Party is how easy it is. gabagabadii kulankana madaxweynaha ururka jaaliyadaha Afrikaanka Nasir Cigaal iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi ayaa nooga waramay ahmiyadda kulankani u leeyahay jaaliyadaha Afrikaanka ee ku dhaqan gobolka Victoria. Nasir Cabdinaasir waxa nooga warbixisaa muxuu ahmiyadda guud ee kulankani? Kulankan wuxuu ahaa isu keenitaan ama isku xiritaan xisbiga talada wadankan haya iyo qowmiyadda Afrikaanka wadankan ku nool. xisbiga talada haya Liberalka iyo jaaliyadaha Afrikaanka maxay ka wada shaqeyn doonaan? Waxay ka wada shaqeyn doonaan inta shaqooyinka xagga ganacsiga in mataqaanay sheeg dad badan oo madooba laga caawiyo inay wadanka gudaha soo galaan. Adiga ka soo jeeda wadanka Soomaaliya waxa lagu doortay noqotid gudoomiyaha ururka midnimada Afrikaanka ee Australia. Waa si dareenkaagu? Wallahi dareenkayga waa dareemi kartaa nin Soomaaliya oo loo doortay madaxweynaha dadka madowga wadankan. African communities-ka ku nool magaalada Melbourne waxay leeyihiin ururo kala duwan bay leeyihiin. Xidhiidh nuuceeya la leeyihiin ururada kala duwan Afrikaanka gaar ahaan kuwa Soomaalida oo tirada aad u fara badan tahay. Wada shaqeyn intee leeg baa leeyihiin? aad baa u mahadsan tahay waa garan kartaa Soomaali oo dhan baa caawa timid ururada Soomaalida oo ururo Soomaaliyeed weeye kana waa urur Afrikaan weeye marka xiriir fiican baanu leenahay oo de taas ma diidi karayno inaan xiriir leenahay waa wax muuqda Soomaali oo dhan baa ka soo qayb gashay annaguna Soomaali baanu marka xiriir wanaagsan waanu leenahay ururkiina waa urur Afrikaan u taagan oo Soomaali kale aan u taagnayna aanu doonayno inaan ummadda Afrikaanka ah oo dhan 54 wadanba aanu matalo aanu wax u qabanno oo aanan Soomaali kale u qaban laakiin maadaama aanu Soomaali nahay gaar ahaan wayna taabanaysaa wixii dhibaha Soomaalida ahayaan oo inaanu wax u qabanaan rabnaa gaar ahaan xisbiga talada haya Liberalka maxaa faa'iido ah oo kulankan lahaa? waxa faa'iido ah oo kulankan lahaa xisbiga Liberalka waa xisbiga dalka talada haya federal level wax badan ayaa awal lagu kala dhimnaa xisbigan waxa weeye Afrikaanka warigood kuma ay dhex jirin laakiin hadda waxa weeye barnaamijku waxa imaanaya waxa weeye in Afrikaanka ay door ka qaataan siyaasadda dalkan
community awareness loo qabto maaragtay horumarka dhalinyarada waxbarashada maaragtay dhalinyarada xabsiyada ku jirta in wax laga qabto oo loo sameeyo maaragtay youth maaragtay sidii ay loo wacyigelin lahaa. intii waxay ahayd xaflad isbarasho ah oo loogu talagalay inaannu maaragtay tusno inaannu dad badan oo waddankan degan aanu wax bedeli karno. wallaahi aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dhammaan ummadda ka soo qayb gashay caawa barnaamijkan iyo kuwii soo qaban qaabiyo inuu soo invite gareeyay haddaan dhaho ummadda Soomaaliyeed ama aan dhaho Afrikaanka halkaan degan muddo badan baan kala daadsanayn oo xitaa aanan garanaynin jaanisiyada iyo opportunity-ga annagu waxaan xaq u leenahay si aan u raadsano aanan garanaynin laakiin hadda waxaan maaragtay bilownay oo aan maanta ururkan bilowgiisa halkaan aan ku daahfuray aan ururkan u sameeyno u daahfuray from now on inaan maaragtay dawladayadana garab istaagno wixii maaragtay tabarteena iyo waxa anaga waajibka naga saaran wadankan aan joogno. Home Cable TV magaalada Melbourne wadanka Australia.